Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha qaaliga maanta waxaan idinla wadaagayaa nabraha ka soo baxa hareeraha isha ama baalka isha. Run ahaantii aad iyo aad ay u kala duwan yihiin nabraha ka soo baxa hareeraha isha. Mid wuu yar yahay, mid wuu weyn yahay, mid wuu gaduudan yahay, mid gaduud ma lahan, mid aad iyo aad ayuu xanuun badan yahay, mid xanuun ma laha. mid nabraha qaybta kore kaga soo baxa, mid hoos ayuu kaga soo baxaa, mid gudaha ayuu kaga soo baxaa, dadka qaar dad banaanka kaga soo baxa. Nabraha ka soo baxa baalka isha aad iyo aad ay u kala duwan yihiin. Qofka hadduusan iska daaweyn waayeen waa xaalad halis inuu isha gala laga yaaba. Run ahaantii hadduu nabarkan qaybta kore kaga soo baxo oo qofkan iska daaweyn waayo, waxay ku sababay inuu baalka isha dhan inuu soo dhaco oo qofka control waayo. Hadduu gudaha ka soo baxana qofka waxay ku sababay xaalad aad iyo aad u halis oo infection iyo dheecaano inay gudaha qofka ugu furmaan. Videogan hadduu la rabto baaqi noo dhigo waxaan kaga hadlaynaa nabraha ka soo baxa hareeraha isha iyo dadka khatarta ugu jiro symptomska sida loo daaweeyo. Nabraha ka soo baxa baalka isha ama hareeraha isha Soomaali waxay u taqaanaa hal magac oo abuututu ah. Dhammaan hadduu kor kaaga soo baxo, hadduu hoos ka soo baxo, hadduu xanuun leeyahay, hadduu xanuun lahayn, dhammaan waxay u taqaanaa abuututu. Laakiin markii la joogo cilmi ahaan, caafimaad ahaan markii la joogo, aad iyo aad ay u kala duwan yihiin magacyadooda. Midka ugu horeeyo waxaa loo yaqaanaa Clesium. Clesiumka inta badan wuu daahaa oo wax hadda duu hore ka soo baxo oo hore ka baaba'ay maaha. Qofka waxaa laga yaabaa inuu 2 bil 3 bil ka badan xataa qofka inuu iskaga yaalo. Clesiumkani maxaa sababa marka midkan oo ciyo aanan dhammaanaynin maxaa sababa? Waxyaabaha sababa waxaa waaye inay xirmaan mammalian gland qanjir la dhahayo mammalian gland oo ku yaalo qaybtan sare ee eyelidka baalka isha qaybta sare inuu ku yaalo. Sidoo kale infection wuu sababaa. Midka infection wuu sababaa waa unknown. Midka saddexaadna waxyaabaha cause gareeya waa unknown oo waxaan la aqoonin. Laakiin mostly waxaa sababa inay xirmaan mammalian gland qanjirkan la dhahayo. Waa qanjirkan wuxuu soo saaraa ilinta. Qanjirkaas markuu xirmo ayuu dhacaa nabarkani. Maxaa dhacay marka xaaladda dhacays waxaa waaye inuu isku soo aruuro meesha wadada soo maraysa ilinta, kadibna meesha dhan ay xiranto ay adkaato. Run ahaantii nabarkaas soo sheegnay cabaar waqti badan ayuu qaadanaa. Yaa khatar ugu jiro marka nabarkani inuu isha kaga soo baxo qofka. Waxaa khatar ugu jiro dadka qabo infection, dadka qabo baalka isha, dadka infection kaga qabo. Sidoo kale dadka qabo sokorta halis waxay ugu jiraan nabarkan inuu ka soo baxo. Calaamadaha uu leeyahay maxaa ka mid ah marka nabarkan cabaar qofka ku yaalayo maxaa calaamado uu leeyahay? Mostly horta wuxuu ku badan yahay qaybta kore ee eyelidka baalka isha banaankiisa sare ayuu ku badan yahay. Sidoo kale xanuun ma laha nabarkani, wuu bararan yahay leh. Markii laakiin la gediyo eyelidkani baalka isha markii la gediyo isha hareeraha dhan way gaduudantahay, aad iyo aad ay u gaduudantahay. Marka maxaa ka dhalan kara nabarkan haddii la iska daaweynin? Qofku wuxuu ku sababi karaa aad iyo aad ay u halis yahay. Wuxuu ku sababi karaa aragtida dhan inuu cawar uu ka dareemo. Sidoo kale cornea meesha madowda isha in qofka inuu dhibaato weyn oo ka sababo oo compression uu saaro. Sidoo kale dhibaatada ugu weyn oo sababo waxaa waaye inuu sababo ptosis wax la dhahayo oo eyelidkan inuu soo dhaco, baalka isha inuu soo dhaco oo qofka xaaladaas duu gaaran aad iyo aad ayaa ulustaa oo surgery lagu daaweeyaa, xataa qaliin ayuu gaarayaa. Nabarkaas yar oo sida fudud loo daaweyn karo hadduusan iska daaweyn qofka wuxuu sababaa in uu qofka surgery u galo. Sidee loo daaweeyaa marka? Horta hadduu yar yahay oona jilaac uu yahay qofka asaas samayn kara self resolution jir ahaan ilaahay difaac ahaan jirka wuxuu sii qofka inuu wax kastoo jirka soo gala dhibaato haddii xirmaad wax walba u noqdo inuu jirka iska daaweeyo. Laakiin hadduu qofka ka tambadiyo waxaasi dhakhtar iyo waxaas inuu ula xiriiro la rabaa. Run ahaantii nabarkani hadduu yar yahay oona jilaac uu yahay asaa iska baaba'ay. Laakiin hadduu weyn yahay surgery la sameeyaa oo nabarkaas meesha sariista waa la bujiyaa oo dhakhtar loo tagaa kadibna
antibiotic la isticmaala. Intaas maxaa ka horeeya marka waxaa ka horeeyo inaad nadaafada ku dadaashid eyelidka baalka isha nadaafadeeda inaad ku dadaashid oo wax mar nadiif ah oo mataqaana biyo qandacna soo qaatay mar walba aad dhaqdid aad nadiifisid markasta aad nadiifisid waxaa laga yaabaa nabarkaan inuu ka fiicnaado. midka koowaad midkaas waa waxaa kaloo jira mid la dhahayo style mid la dhahayo ayaa jiro. stylekan laba nooc ayuu leeyahay, mid internal ah oo gudaha ah iyo mid banaanka ah. midka banaanka ku hormarno. midka banaanka horta aad iyo aad ayuu u xanuun badan yahay, painful waa kii hadaa waxaa soo sheegnay wuu yaryahay runtii kii hadaa waxaa soo sheegnay xanuun malaha laakiin xanuun ayuu leeyahay, sidoo kale wuu gaduudan yahay. inta badan waxaa sabab bacteria la dhahayo streptococcus bacteria la dhahayo ayaa sababto, wuxuuna ku dhacaa qanjirada la dhahayo mole anzine. labadood waxay soo daayaan, midna waa sweet gland midna waa sebaceous gland. glandiskaas ayuu ku kala dhacaa. marka khatar yaa ugu jiro, khatar waxaa ugu jiro intaa hore usoo sheegna oo ah dadka infectionka qabo baalka isha, sida dadka sokorta qabo, dadka jirkooda uu qallalan yahay dry dadka uu yahay hore nabarkaan inuu kaga soo baxo qofka. runtii hadduu hore kaaga soo baxo mar labaad khatar uu jirta inuu nabarkaan ka soo baxo. calaamadaha qofka calaamadaha nabarkaan uu leeyahay maxaa kamid ah calaamadihiisa kii hadaa uu ka duwan yahay oo kan xanuun ayuu leeyahay, aad iyo aad ayuu xanuun badan yahay xataa. sidoo kale wuxuu kaloo leeyahay maal ayaa ku dhex jirto. macnaha maal waxaan leenahay malax ayaa ku dhex jirto, maal ama malax ayaa ku dhex jirto. sidoo kale wuxuu kasoo baxaa meesha timaha ay kasoo baxaan ayuu kasoo baxaa. kii hadaa meesha timaha ka sareysa ayuu kasoo baxaa, laakiin midkaani timaha agtiisa oo lashiska agtiisa ayuu kasoo baxaa. waxyaabaha uu ka dhalan karo qofka hadduu qofkan iska daaweyn wuxuu sababi karaa wax la dhahayo parietal cellulitis iyo orbital cellulitis. runtii aad iyo aad ayay walis u tahay qofka hadduu iska daaweynin in oo meesha dhan xinjir isha dhan inay wasaq iyo mataqaana infection isha dhan gudaha inuu qofka ka qaado. qofka sidee loo daaweeyaa? horta waxaa laga daaweyn karaa qofka inuu isticmaalo wax kuleel ah oo nabarka maadaama qaybta kore uu kasoo baxay maro kuleel ama biyo qandac oo kuleel inuu isticmaalo muddo 10 daqiiqo ah 10 minute 10 daqiiqo inaa qofka isticmaalo oo maradaasi waxaas uu sameynaan koowaad 4 jeer oo isticmaalay. sidoo kale hadduu intaas qof ku fiicnaa waaye dhakhtarka ayuu u tagaa oo wuxuu isticmaalaa daawoon antibiotic ah, daawoon oo xanuun baabi'iya maadaama aad iyo aad u xanuun badan yahay. waxaa kaloo jira internal hordiolum, nabarkaani mid gudaha kasoo baxaya ayaa jira. midka gudaha kasoo baxaya waxaa loo yaqaana internal hordiolum. maxaa sababa? bacteriada hore sababta ayaa sababta oo loo yaqaano streptococcus bacteria. laakiin qanjirka oo kan ku dhacaya waxaa loo yaqaana mammalian gland oo infection ayuu qaadaya mammalian gland. calaamadaha uu leeyahay maxaa kamid ah? calaamadaha uu leeyahay nabarkan gudaha markuu qof kaga soo baxo aad iyo aad ayuu xanuun badan yahay, wuu gaduudan yahay, maal ayaa ku dhex jirta ama maxaa leeyahay malax ayuu wataa. wuxuu kaloo leeyahay dhibco markii eyelidka la gediyo baalka isha markii la gediyo waxaa soo baxayo malax jaallo ah ayaa qof ka soo baxayo. calaamadaha uu leeyahay waa qofka nabarkaani. maxaa lagu daaweeyaa marka? waxaa lagu daaweeyaa horta sida haddaan soo sheegnay camal wax kuleel ah qofka inuu isticmaalo, sidoo kale qofka dhakhtar inuu u tago hadduu waxaas oo isticmaalo uu ku daawoo waayo oo biyo kuleel ama qandac inaa isticmaashid waxaan iskaga nadiifisid maadaama bacteria ay keentay. hadduu ku fiicnaa waa dhakhtar inuu u tago si oo malaxdaasi waxaas loo nadiifiyo. maanta intaan ka hadlayna nabraha kasoo baxa baalka isha hareerahan kasoo baxa saddexdaas nooc ugu caansan. waa idinkaga mahadcelinaya daawashada videogan. xalqada maanta intaan kaga hadlayna waa idinkaga mahadcelinaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.